halkaas oo ay ka dhacday biilaan hadeerna uu shuban biyood macnaha dad u dhinteen waxa jiray bisha 20keedii afraad bisha afraad 20keedii ayaa waxa jabaceelka riiga ahaa ee ka cabi jiray magaalada Xaabo ka bacdi waxa timi in la dhaansado jirigaano iyo foostooyin iyo waxaan la ogeyn wixii lagu keenay iyo wixii la isticmaali jiray halka waxa ka dhalatay in daacun shuban biyood uu ka dilaacay hadda waxa dhintay shalay oo bishu ahayd 12 bishii shanaad marxuum maxamed Cismaan iyo marxuum maxamuud Yaasin haddana waxa u ildaran dad badan oo ciyaal u badan hay'adaha waxaan markaa halkan shirkan u qabtay in hay'adaha caafimaadka iyo kuwa biyaha quseeya iyo in arintaas iyo dawladda Puntland in arintaas gacan laga geysto sidii wax looga qaban lahaa macnaha oo halka macnaha oo gurmad baa loo baahan yahay degdega iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaanu codsanaynaa oo aan shirka jiraayad u qabtay